kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kastoo ay joogtaan kusoo dhawaada warka rasmi radio. Xukuumadda Soomaaliland ayaa meel adag iska taagtay wada hadallada u dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya iyadoo ay uga socda dalka Turkiga kaasi oo salka ku haya sidii loo soo afjari lahaa ama loo soo gunaanadi lahaa isafgaradkii ay wada gaareen Itoobiya iyo Soomaaliland. Itoobiya loo saxeexay qaybo ka mid ah biyaha Soomaaliya. wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Cali Mareexaan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Soomaaliya aanay marnaba heshiis la geli karin Itoobiya qaasatan aysan kula geli karin dhulka ama badda gobolada waqooyi ee Soomaaliya taas oo ula jeeda xeebaha Soomaaliland. sidoo kale waxa uu si cad u sheegay in heshiiska ay dowladda federaalka Soomaaliya ay doonayso inay gasho inuu la mid yahay kii ay iyagu la galeen Itoobiya xilli uu magaalada Ankara ee dalka Turkiga